nabaday daawadayaal meel kastoo aad ku sugan tihiin halkani waa KF Media TV waxaan maanta wareysi gaar ah oo xiiso leh kuna saabsan akhriska la yeelan doonaa Ibrahim Waaberi oo ah qoraa iyo tababare waliba sidoo kale kamid ah aasaasayasha xarunta PhD Center waxa weeye maanta studio-ga ayuu inoogu casuuman yahay aad baan kugu soo dhaweynaynaa walaal Ibrahim Waaberi telefishinka weyna KF Media TV sharaf bay noo tahay inaad nagula sugan tahay wax weeyaan maanta telefishinka aad baad mahadsantahay walaal Cabdirus anigana waa ku faraxsanahay aan sharaf bay tahay inaan idila joogo maanta KF Media aad baad mahadsantahay waana dhaweey aad baad mahadsan tahay maanta waxa weeye mowduuc aad u weyn ayaynu ka hadli doonaa oo ah akhriska marka si guud akhriska inagoo u eegayna maxay kula tahay hadaynu su'aasha koobaad ku bilowno waa maxay faa'iidada guud ee akhrisku oo qofku uu ka heli karo بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله runtii waa su'aal mudan oo su'aal ballaaran oo intee lagu bilaabo mowduucan ballaaran ee akhriska ka hadlaya ma yihi qofka ugu mudan ee runtii akhris ka hadla anigu waxaan isku arkaa kolley inaan arday ahay wax akhriya oo markasta ku jira siduu akhriskiisa horumari lahaa laakiin marba haddii tababarada iyo waxyaabahan bixin ay ka mid yihiin sida wax loo barto oo mawaadiicda si gaara unaan u daraasaya ayuu ka mid yahay marka runtii akhriska faa'iidadiisa waa mid aad u ballaaran haddiise aan soo koobno waana waxay tahay in markasta la isxasuusiyo run ahaantii waan ognahay kolley muslim ahaan waxaan ognahay qur-aanka aayaadkii ugu horreeyay ee soo degay iyo suuraddii ugu horreysay inay ahayd iqra nebiga sal alla alay wasalam lagu lahaa akhri akhriska faa'iidada koobaad laga helaa cilmi iyo aqoon oo aqoonta faa'iidadeeda iyadu waa gaar akhriskuna waa gaar akhrisku waa dariiqii cilmiga lagu helay ayuu ka mid yahay markaasuu ilaahay subxaana wataala ina leeyahay miyay siman yihiin kuwa wax barta ama kuwa wax yaqaana iyo kuwa aan waxba aqoonin marka dariiqaas cilmiga lagu helayo way akhrisku iyo ogaalka lagu helayo akhriska faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in luuqad ahaan qofku uu dhismayo vocabulary iyo erayo badan uu baranayo oo haddii uu qasdigiisu ahaa inuu luuqad barto iyo haddaanay ahaynba kaydkiisa kelmadood iyo luuqadaas uu qofku ku hadlaya ayaa sii kobcaya sii ballaaranaya marka hadhow qofku haddii uu hogaamiye yahay iyo hadduu dad waxu sheegaya iyo hadduu macallin yahayba erayadiisu way ka mug ballaadhayin qofka waxba akhrin oo imagine inta eray iyo inta kelmadood ee cusuban maalin walba ka baranaysa buugad akhrinaysid akhriska faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah creativity iyo hal abuurka inaad ahaatid qof wax curin karaa oo fikrada heli karaa oo fikradii dhalin karaa oo fikirkiisu kobco oo hab fikirkiisu qurux bato akhriska maskaxiyan ayaa caafimaadkeeda iyo fitnesskeeda uu faa'iido yahay oo haddii jirhka qofku markuu jiim galo baraha qaado uu jirhka ku dhisto baraha akhrisku waxa weeyaan mid ka mid ah siyaabaha maskaxda loo jimicsiiyo loona dhiso marka hadday tahay qofka focuskiisii iyo dugmadiisii iyo diirad siyaaradiisii iyo xoogaysanaya hadday tahay xasuustiisa oo xoogaysanaysa hadday tahay fahamka guud iyo connectionska iyo neuronska cusub ay isku xidhmaya beriga hore psychologyga waxaa la aaminsanaa maskaxdu inaanay waxba iska bedelin oo aanay horumar samaynin dhanka kobaca laakiin hadda daraasaadka cusub waxyaabaha sheegaya waxaa ka mid ah inay xataa connections cusub maskaxda neurons cusub ay isku xidhmaan oo ay fido taana waxa keena oo suurtogeliya baa la idhahdaa learning new things qofku inuu barto wax cusub marka imagine qof maalin walba wax akhrinaya ama intaasoo buug akhrinaya mise wax cusub buu ka dhex baranaya marka kobacaas iyo xooganida maskaxdu ay ku dhismayso ayaa qayb ka ah waxaa ka mid ah faa'iidooyinka decision makingska waxaa la yidhahdaa war la helyaaba tala la hel qofku hadduu hogaamiye yahay iyo hadduu ganacsi haysta iyo haddii kaleba si uu go-aano fiican u qaato markuu aad wax u akhriyo xog fiican buu helaya ogaalkiisuna uu kobcaya go-aanadana waa fududaanayaan waxaa ka mid ah akhriskaas diin ahaan cibaadada oo dee ilaahay si aad u cibaadaysato sida ugu wanaagsan waanad cilmiga diinta waxa ugu yaraad ka baran karta ugu fudud ee basic waxa weeye wixii aad ilaahay ugu cibaadaysanaysa salaada tukanaysa aqoonta ku saabsanaad quraanka akhrinaysa iyo diintaadii marka waa cibaado iyo iyana diintaadii faahantid iyo inaad aakhiradaada aad ugu shaqaysatid ayaad akhriska ka faa'iidaysaa akhriska waxaad ka faa'iidaysaa waxaa ka mid ah inaad access u heshid inaad la kulantid inaad si
free ah oo lacag la-aan aad kula kulantid adduunka maskaxii waaweynaaye soo maray as a mentors waa la taliyayaal noolaa 1,000 sannadood 2,000 sano 100 sano 50 sano qaarkood nool yihiin qaarkood aanay noolayn culammadii islaamkii hore aqoon-yahankii hore falsafaradii hore cidda doonaan ha noqdaan in aad la xidhiidhisid adigoo maanta jooga zamankan taladooda iyo aqoontooda iyo tusaalahooda aad haysid marka waa mentor waxaad access iyo si fudud aad u helaysaa inaad heshid dadka hagayaasha ah ee nolosha kuga hagaya xikmadeeda iyo aqoonteeda jawaaniibta kala duwan iyo ereyaha kala duwan ee nolosha qofku kama baahdo qof haga oo u haga gaar ahaan wuxuu doonayo iyo si guud nolosha horumarkeeda iyo guulaheeda marka akhriska xataa waxyaabaha laga helo waxaa ka mid ah farxad maskaxda midal waxyaabaha stresska yareeya waxaa ka mid ah qofku markuu wax akhriyo muddo wax akhriyo aqoon fiican hela xataa farxada in laga helo ayay daraasaadku sheegayaan waxyaabaha ugu yaryar akhris laga heli karo waxaa ka mid ah waa entertainment iyo madadaalo ambaba si kale haddaan dhan faa'iido la ka eegna imaginationkaaga matalan xataa noveliska iyo bugaagta sheekooyinka qofku markuu akhriyo dee waa qaab madadaalo ah oo dhaanto ka faa'iido badan qofku inuu filimada uu daawado qof filimada daawanaya qofka buugta noveliska daawanaya labaduba waxaa laga yaabaa inay isku ujeedo yihiin laakiin way kala faa'iido badan yihiin midna buug baad akhrinaysaa iyo qaab adag baad maskaxdaada u challenge garanaysaa adigoo haddana madadaala qaab madadaalaha uga faa'iidaysanaya wixii enjoy garanaya ku raaxaysanaya midna filim baad daawanaysaa keliya indhown baad ka daawanaysaa waxaa laga yaabaa maskaxdaada inaanu wax aqooni kusoo kordhin mid khayaalkaaga iyo imaginationkaaga kordhinaya iyo creativitygaaga midna waxaa laga yaabaa keliya ta inuu mararka qaar waqtigun kaa lumayo ood waxoogaa madadaalo oo keliya ka heshid marka waa madadaaladii oo mararka qaarkood aad buug ka helaysid waa bugaagta noveliska bugaagtu labay u qaybsamaan bugaagna waa cilmi iyo xog kuwana waa fiction ama novelis waa bugaagta loo yaqaano sheekafaneedka ama ruwaayaadka marka ruwaayaadka waxa badanaa loo akhristaa waa madadaalo ahaan laakiin waxaa ka badan faa'iidada kale ku jirta ee khayaalka qofka qaarkoodna aqoon dadban baa gudbinayaanba marka waa kii filimka daawanayay way kaga faa'iido badantay iyaduna marka akhrisku runtii faa'iidooyinkaasoo dhan buu leeyahay oo aynan soo koobi kareen aqoonta lafteeda iyo jaamacad iyo iskuulka iyo takhasuskaagii dee akhris buu kaaga baahan yahay si aad heer iyo guul uga gaadhin marka ma koobi karayno akhrisku faa'iidooyinka leeyahay laakiin hal midun baan kusoo gunaanidi lahayo ah nasiib daro in dad badan oo wax akhriyaanay faa'iidooyinkaa wada gaadhin sababo la xidhiidha mararka qaabka wax loo akhrinayo haddii qaladaad uu jiro oo qofka laga yaabo isagoo wax akhrinaya in qaladaad ay jiraan in laga yaabo faa'iidooyinkaasoo dhan inaanu gaadhin baa dhici karaysa sabab la xidhiidha qaladaad iyo qaab wax loo akhrinayo laakiin si guud faa'iidooyinkaas iyo kuwa kale fara badan baa ka mid ah runtii akhriska marka Ibrahim Waberi su-aasha ku weydiinaya waxay tahay waa maxay qaladaadka akhris ee uu qofka wax akhrinayaa sameynayo taasoo u diidaysa waxa weeyaan qofkii inaanu si wacan wax u akhriyin qaladaadka akhriska waxaa ka mid ah ee ka dhigi karaa inagoo awalba wax akhrinayna akhriskeena mid aan midho dhalin oo faa'iidadii iyo muhiimadihii lahaa akhrisku aynaan gaadhin waxyaabaha ka dhigi karaa dabcan qaladaad aynu samayn karna ka mid ah horta waa marka koowaadee mar walba faa'iido wuu jiraa qofku haddiiba wax akhrinaya marka ugu yartay dee buuggii iyo qofkiibaa cilaaqadii dhex maraysaa oo buug baad cilaaqa la yeelanaysaa oo isku mid ma noqonayaan qof aan buugba soo qaadin oo ku odhanaya boring weeyaan waan ku daalaa waa rafaad yaa wax akhrin karaya iyo qof wuxuun akhrinaya kolleyba isku mid maaha oo faa'iido uu leeyahay laakiin haddana faa'iidooyinkaa faraha badan leh akhrisku leeyahay si ayn u gaadhno waa inaan isweydiino maxay yihiin qaladaadku si ayn qaladaadkaas u saxno ama uga hortagno qaladka koowaad ee uu samayn karo qof wax akhriyaa waxaa ka mid ah in aanu direction qofku lahayn amba jiho in badan baad arkay qof dhalinyara oo bugaag fara badan akhriya maadaama maanta social media aad recommendation badan jiraan buugana soo baxay buuga kalena waa noocan buuga kale maalin walba uu buug maqlayo qofku kalba mawduuc kala jihadan inuu u dhaqaaqayo marka qofkii jiha ma yeelanayo takhasus ma yeelanayo deetan wuxuu qofku waxa laga yaabaa isagoo 5 sanadood ka badan wax akhrinay oo laga yaabo sanadkii inuu 40 buug 20 buug akhriyo in haddana aanu jiha lahayn waa waqti badan oo lumaya waayo adigu awalba time baad gelisay caadadii akhriskaad yeelatay buug baad waqti ku lumisaa dee marba haddaad waqtiga intaa leeg buugga u heshay si aqoon lagaaga martiyo aqoon lagu daba fadhiisto aqoon adiguna naftaada ku anfacda dadkuna ay u aayaan si aad u yeelato maad aqoontan baahsan aad jihaysid ood meel raacdid
marka qaladaadka ugu horeeya waxaa ka mid ah inaanu akhrisku jihaysnayn. marka dhalinyarada badankooda haddaynu wada fiirsano bandhig walba kumanaan baa kasoo qayb gelaya waxaa laga yaabaa buug kasta in halkaa lagu dhameeyo laakiin haddana resultiga iyo natiijadoodu aad bay u yar tahay. waa qaladaadkaas baa ka mid ah qaladaadkaasaa ka mid ah ay jihada ugu horeyso inaanu jiha qofku lahayn. qaladaadka kale ee ka mid ah waxaa ka mid ah matalan tusaale ahaan in qofku markuu wax akhrinayo taa hore waxa weeye qalad uu sameeyaan kuwa in uu wax akhriyaa laakiin waxaa jira qalad ay sameeyaan dadka akhriska dhaqso uga caajisa iyaguna amba akhriska culays weli ku hayo ee la talo xagga wax ka qaldayin. qaladka waxaa ka mid ah qofku inaanu nasiino qaadan markuu wax akhrinayo waxaa laga yaabaa buuggu inuu 200 oo beej yahay amba 300 oo bog uu yahay marka buugga markaad soo ogto weyn yahay waxaa laga yaabaa inaad saacad qorshayso inaad wax akhriday deetaa saacad dambaad buuggi dul fadhiyaysaa maskaxdaadu way baxaysaa attentionkaaga iyo dhugmadaadu way baxayaan deetana maalin walba waxaad isleedahay talow maxaan u fahmi lahay maxay maskaxdayda aanay u daraasaynayno inay diirad saariyadeeda aanay u fiicnayn sababtu waxa weeyaan nasiino ma qaadatid marka qofku waxa weeye waa inuu yaqaano inteebo focuskaagu tarkiiskaagu dhugmadaadu diirad saariyadaadu inteebay soo jeedaan boqolkiiba ugu yaraan 70 ay soo jeedaan oo waxaad akhriyaysaa aad inteebay marka aad gaadho ee baxaysa maskaxdaadu okay markii aan ogaaday week iyo 2 week iyo 3 week kadib aan isku fiirfiirsaday waxaan ogaaday marka aan 15 daqiiqo wax akhriyo inay maskaxdaydu daalayso haddaba halka break ku qaado nasiino ku qaado 5 daqiiqo ha noqoto 10 daqiiqo ha noqoto break qaado maskaxdaadii dib u soo celi adigoo cusboonaysiiyay attentionkaagii dhugmadaadii mar labaad soo noqo buuggii mar labaad akhri another 10 minutes amba 10 daqiiqo iyo 15 daqiiqo kale dadka qaar baa 20 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo laakiin 25 ka badata ma marka ugu badanta 25 ilaa 30 daqiiqo waa qof dhugmadiisu aad u fiican tahay qofkaasi deetana break qaado ilaa 2 jeer break markaad qaadatid waa qofka raba saacad amba 2 saacadood inuu wax akhriyo sida arday imtixaan gelaya amba jaamacad dhiganaya amba sidiisa wax u akhrisanayo kale saacad wax akhrinaya marka qaarkoodna 30 daqiiqo kaliya laga yaabaa inaad waqti ba heshid akhris oo maalintaada 30 daqiiqaad ugu tala gashay 30 ka lafteeda 15 daqiiqo iyo 15 daqiiqo u kala qaybi marka akhriskaaga wuxuu noqonayaa mid markaa de faa'iido leh oo dhugmadaadu soo jeeda hadii kale wuxuu baad noqon doontaa qof buugaagta daawada ma noqonayso qof akhriya way kala duwan tahay inaad daawatid buugaagta iyo inaad akhriyo iyo waxaan lagu tartamaa sidoo kale dhamaynta waa qalad kale jiro soo socda oo ah matalan mararka qaarkood waxa weeye qaladkani quantity over quality dadka qaar ba waxay ku tartamaan intaas book baan dhameeyay sanadka 20 book baan dhameeyay marka waa quantity waa tiradii laakiin waxa ka fiican qofku inuu tayada ku tartamo inuu yiraahdo kelmad baa oraaba tiraahda inuu leeyahay la yiraahdo Adler wuxuu oranayaa imise book baan ka dhex baxay waxa dhaantay imise book baa iga dhex baxay aniga marka inaad tiraahdo konton book baan sanadkan akhriyay waxa dhaama inaad tiraahdo 5 book baan akhriyay sanadkan laakiin 5 book aniga iga dhex baxeen qaarkood baan 5 jeer akhriyay qaarkood baan 2 jeer akhriyay si fiican ma u fahmay note baan ka qaatay waan apply gareeyay waan adeegsaday erayo badan baan kala dhex baxay waan fuliyay ayaa dhaanta sanadkan konton book baan akhriyay oo waxba ka xasuusnaan library laga dhiganayo yes way fiican tahay library la sameystaa laakiin library-yadu qaarna waxa la yiraahdaa waa self help qaarna waa shelf help qaarna waxay ku qurxiyaan on shalfigaaga qaarna naftaada ku qurxinayaan marka guriga dhig oo ku qurxi laakiin hubi naftaada ma qurxiyaan mise guriga ma ku qurxisay marka waxa kamida matalan tusaale oraahba tiraahdo iyaduna tiraahdo inaad buug 3 buug inaan akhriyo waxa dhaantay inaan buug 3 jeer akhriyo marka waa tayadii iyo tiradii inaan 3 buug akhriyo waxa dhaanto ka fiican inaan buug 3 jeer akhriyo laakiin buugaasi waa buuga u qalma buugaagta iyaga isku ka sheegaya buuga kula mar labaad igu celi wali wax badan igama fahmin waday aragtay in wax badan igu dhex jiraan iyo buuga kula waan fahmay khalaas amba wax badan kama faa'iidin adaan kala garanaya marka inaad kala taqaanid buugaagta laftooda midda kale xasuusta bini'aadanka markan wax akhrinayno nafteena in badan been baynu sheegnaa buug bad akhri waxaad u aragtaa buuga inaad wixii ku yaalo dhan aad fahantay amba aad xasuusantay isbuuc kadib boqolkiiba 70 waxa laga yaabaa inaad xasuusnaa waxa buuga ku jira iskuulaadka waxaan ku dhigano dhamma inaan xasuusnayn waxa ku xasuusta la waa wixii aad kala dhex baxday iyo intii aad ku celisay iyo intii aad u fiirsatay iyo qaabkaad u akhriday break ma qaadanaysay ayaa ah waxyaabaha ka caawinaya inaad xasuus yeelatid qaladaadka kale la sameeyo waxa kamid ah markay xagga akhriska tahay matalan tusaale in
aad isku daydo cover to cover inaad buug akhrido dadka qaar ba waxay sameeyaan waxay isku dayayaan jaldi ilaa jaldi inay buug kasta dhameeyaan dabeetana rafaad buu ku jiraa bugaagtii wax mararka qaar dhibsanaya wuxuu u arkaa inuu guilty buu dareemayaa amba qoomamo haddaanu buugga dhamaystirin iskuma arka inuu buugba akhriyay laakiin shardi maaha maha ayaad quraan kugu waajiba inaad bugaagta caadiga aad bilow ilaa dhamaystirto waa inaad taqaano buuggan intaan uga baahanahay waa inaad taqaano intee baan ka tegi karaya waa inaad taqaano xataa buugga ay tahay inaad cover to cover akhridid waxa go'aansan doona siyaabo wax loo akhriyo laga yaabo inay su'aal kale inoo imanaysa ay tahay markaad baratay qaabka wax loo akhriyo ayaad kala garan doontaa markaa buuggeebeetay inaad wada dhamaystira laakiin matalan tusaale ahaan buugga markaad soo qaato oo horeeya daalacasho guud baad ku samaynaysaa daalacashadaas 5 daqiiqo 10 daqiiqo kama badnaa markaasaad ogaanaysaa buuggan intaad uga baahantahay buugaagta qaar baa scenario iyo case study iyo sheekooyin iyo waxyaabo badan oo muhiim ah inay ka buuxaan inta nuxurkina aad u kooban tahay marka buugga marka hore dulmar marka ku samayso waxaad ogaanaysaa meelaha aad uga baahan tahay nuxurka leh dabeetana markaad introduction-ka akhridid aad chapter-ka u horeeya dhamaystirtid aad ka u dambeeya summary-ga akhridid aad chapter kaste paragraph-ka akhridid fikrad fiican baad buugga ka qaadanaysaa hadda markaa buugga akhrisa intaad uga baahan tahay meelo badan waad dhaafi karaysaa dabeetana buugga markaad saa ku dhamayso wuxuu kuu geli karayaa buug aad akhrisatay ayuu kuu geli karayaa waxa laga yaabaa buuggaanaad maalin kaliya ku dhamaysay weliba haddii akhriska degdega iyo qaababka wax loo akhriyo iyo maskaxdaada focuskeeda iyo indhaheeda iyo oo de markaasood wax sii akhrida faa'iidooyinka akhriska waxaa ka mid ah focuskaaga iyo dhugmadaada training bay qaadanaysaa indhahaagu qaabka erayada u fahmaan training bay qaadanayaan marka luuqadii erayadii fakobi training marka tababar badan taa qaadanaysaa marka hadhow waxaa dhici doonta inaad akhriskaaga uu ka degdegatood sidaad intaad ka fahamkaaga laftiisa uu ka dheeraada dhacaysa laakiin inta hore mar walba ha isku qasbin inaad buugga dhamaystirto marka waa qaladaadka la dhameeyo qaladaadka ugu dambeeyaan soo qaadan karna waxaa ka mid ah qalad kaa ka soo horjeeda kii hore waxaa nidhi inuu qofku isku dayo buugkaas inuu dhammaystiro qaladkani waxa weeyaan inuu qofku naftiisa khiyaameeyo oo samariyo yaryar akhristo waxyaabo yar la soo koobay google-ka uu iska galo youtube-ka review yar oo ka akhristo buugga uu saa u daalacdo dabeetana buugka soo shalfiga ku celiyo maktabadda uu iskaga celiyo dabeetana uu arko yidhaahdo 100 buug baan akhriyay hadda weligii buug qoray intuu saa fadhiistay si critically analytically intuu u dhex fadhiistay si fiican nuxurkiisa uma fahmin marka taasina waa qaab kale qofku naftiisa ku khiyaameynayo marka qaababkaas dulcararka samariyadu waa buugga markaad dhamayso sida loo review garayo iyo buugga intaanad bilaabin sida loo dulmaro weeyaan labada midna uu ku diyaarinaya midna waxa weeyaan markaad dib buugga ugu noqonaysid laakiin labadii midna akhris maha saxa buuggii markaa naftaadii been baad u sheegtay waxaad akhrinaysaana wuxuu iska noqon doonaa un adiga iyo qofka bostiyada iyo social media wax ka akhrista waxba isma dhaamaysaa marka iyaduna waa qalad kale marka arrimahaasoo dhan baa runtii ka mid a waxyaabaha akhriskii faa'iidada lahaa aan keenaynin inaynan midhihiisi wada gaadhin